Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Mursal here again. I was discussing yesterday a hot topic Dhaqan Celin in Nephew's Corner. Nephew Hamza, Chief Waq Salami. And I kept hearing failed parents. Now, you know, أنا مركز تحال سمايا when I see a comment on layabo or anything similar, the natural reaction would be to look at the person's profile. Look at it. Marka, those opinions I saw saying failed parents, Dhaqan Celin is bad, Dhaqan Celin is this, Dhaqan Celin is that, or negative kusabsan badana, came from people or Dhaqan Celin laftigooda u baahan. I mean, Islaan afartan jir oo madaxa qaawisto surwaal ku dhagan xiran. You know, she needs Dhaqan Celin. And oday jeegada xirtay oo Francisca filterkiisa soo gashta maalinta Paris la qarxiyay. You know, Dhaqan Celin u baahan yahay. Marka, first of all, let me state this. Ana lay Dhaqan Celin. And thanks to my Dhaqan Celin, I am the man today I am. And I'm living my life, my dream life, to be honest. Because if I didn't come to Africa, I would have never known the life. I would have never known. Look at it. I got shakal in the house. And right now, I got my own business. I got my own shit. I got my own money. And for the first time in my life, I actually dream about building. I dream about achieving. And the reason why is because Somali nimo bali fancy. Somali nimo bali bara. Aqal Somali bali gli. Garta intaas horta. Dhaqan celintu waxaa loogu talagalay qofka in aqal Somali loo soo yeelo. Because dhaqan celin baa la yiri. Lama dhihin diin celin. Lama dhihin hagaajin. Waxaa la yiri dhaqan celin. Because what defines a person? It's their culture. It defines you. Marka, you can be ethnically Somali and not be Somali. And you can be a different country, but if you grow up in Somalia, you're going to behave like a Somali. Marka, the reason wax loo dhaqan celiyo waxa weeye when parents actually realize unugan Somalinimadu waa ka tagay. So, you know, waa inaad soo qabto gacanta lagu soo dhigo. Now, there's also the popular misconception because a lot of parents actually do it. Cunugooda waxay dhaqan celiyaan markuu halaabo iskuulka ka haro ama ciyaasnimo bilaabo ama balwad yeesho ama things like that. But to be honest, ani waxaan dhihi lahaa parents oo carruurtooda isdhahayaan yes, they're good kids, kuwaas la dhaqan celin. And I'll tell you why. Because haddaa carruurta haddeer la dhaqan celin fiican, yeah, markay hadhowtu wax noqdaan, markay jaamacad gaaraan, shaqaystaan, wax noqdaan, do you think inay dadkaaga wax tari doonaan? No. You know what se u xisaabtami doonaan? Sida caddaanka u xisaabtamaan, because dadkaasay ku dhex jiraan. Ama madowga. I prefer markaas caddaan, runta haddaa laga hadlo. But still, they're gonna behave like that. So, aakhirka ogow, laftigaaga adaa waarida, laftigaaga. Ama adiga yaanu kugu dhicin, ama ayaga yaanu ku dhicin. Like, I guarantee you this. Carruuraan dhaqankaaga lahayn, dadkaaga maaha. Success kasta ha yeeshaan. Because at the end of the day, haddeer waxaa arkaya gabdho talking about placing parents in elderly homes. I mean, me as a Somali, the thought is unfathomable. It doesn't exist in my head to do such a thing. Because ani waxa la igu koriyay, wariyaa waxaan ku dhalaa anina wax tarti. Ceebna maaha. Marka, I know it's a duty upon me to do. But you can also see that carruurtan yaryar haddeer soo koraysa already xoogaa waa bedelmeen because people like me had kids aan la dhaqan celin. Ma fahamtay? So, ani waa la dhaqan celiyay, and a lot like me waa la dhaqan celiyay, waa ka soo faa'iidaysanay. But there's a lot aan la dhaqan celin because they were apparently doing good. They were in school. They weren't chasing balwad iyo waxaas. And guess what today? Today diintooda ma yaqaanaan dadkaas badanaa. They behave more like caddaan. Waxaa arkaysa naaga waaweyn, tinta la qaawinaa, surwaal isku dhagan, futada banaanka la soo dhiganaa. Muslim baa lagu leeyahay. Somali ah lagu leeyahay. What do you mean Somali ataa Muslim ataa? You have no trace of culture in you to define such a thing. Marka, understand this.
dhaqan celin waxaa loo sameeyaa qofka ina Soomaalinimada lagu soo celiyo aqli Soomaali. And for those that hate Somalinimo, well, hate all you want. And for those that understand they are Somali, even if your kid is good, remember markuu aqli yeesanayo qofka meesha ku aqli yeesta aqligiisu leeyahay. So understand that direct cunugaaga inuu Somali ahaado. If you value being a Somali, you gotta have to send them back to Somalia, and not for a period of 3 months, 5 months, 2 months. Yeah, let's go on holiday to Somalia, because that's valueless. You just wasted money. You need a person to live there, absorb the culture. That takes time, a year or 2 minimum. You don't have to waste time, but you have to have a minimum set. And don't send them to Badia Markas. Put them in town. Put them with people you trust. Your brothers, your sisters that you know. Not in some freaking boarding school. Marka, that's my 2 cents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.